guddida qandaraasyada qaranka Somaliland oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ayaa xafiiska maamulka gobolka Togdheer ku kala saartay 3 shirkadood oo u tartamayay mashruuca qodaalka beeraha ee ku yaala deegaanka beer kaas oo dhan 700 oo hektar. munaasabadani lagu shaacinayay cidda ku guuleysatay qandaraaskaasi waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland, wasiirka horumarinta kheyraadka biyaha iyo gudoomiyaha qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen. gudoomiyaha guddida qandaraasyada ayaa ugu horreyn ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay mashruuca qodaalka deegaanka beer. waxaanu ku dhawaaqaynaa go'aankii 700 hektar ee qodaalka ahaa ee magaalada beer lagu tartamayay waxa u soo tartamay 3 shirkadood. shirkadda ugu horeysa magaceedu waxa weeye Libaax Construction, shirkadda labaad Barwaaqo, shirkadda saddexaad Pacific, shirkadda la yiraahdo Pacific waxa la wax ay qiimo oo ay soo qortay ma jirto. tartankuna waa iska ilduufka zero balance ayay qaadatay oo qiimihii ay ku tartamaysay way iska soo ilowday, sidaasay ku hadhay. shirkadda la yiraahdo Libaax Construction waxay soo qoratay 43,942.5. shirkadda Libaax waxay ku hadhay qiimihii selling price-ka ama iibka umay soo dhawaan, sidaas iyaduna ay ku hadhay. shirkadda la yiraahdo Barwaaqo ayaa tartankii ku guuleysatay oo ku heshay 739. geesta kale wasiirka horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Said iyo wasiirka horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland Salabaan Cali Koore ayaa ka hadlay qiimaha uu mashruucan ugu fadhiyo guud ahaan qaranka iyo sidoo kale deegaanka beer. goboladu aad bay uga cawdaan qandaraasyada. runtii guddiga qandaraasyada qaranka waxaan ku amaanayaa in ay qandaraasyada geeyaan gobolada. waana tallaabo hore loo qaaday. waxa ugu badan ee ummaddu ka cabataana waxa weeye qandaraas aan dadku soo gaarin deegaamada kale oo lagu qabto Hargeysa. waa markii ugu horeysay inta Somaliland jirtayba bir beeraha la qabto, taasina waxay horumar iyo ahmiyad u siinaysaa wax soo saarka dalka. runtiina waxaan Ilaahay ka rajaynayaa sanadka soo socdana gobolada dalka oo dhan birkaasaan iyaynu u qabanaynaa. dadka beeralayda wayna u tartamayaan deegaan kastaba. birka biyaha iyo dhismaha guryaha un baa la qaban jiray, laakiin waxa ku soo biiray beeri baa ku soo biiray. waxaan ugu soo darnay waxa weeye waxaynu kor u qaadaynaa wax soo saarka dalka. aniguna ka wasaaradda beeraha ahaan waxaan diyaar u nahay inaanu iyo hawlo la garab joogno dadka beeralayda say wax soo saarka u kordho. waxaan Ilaahay ka rajaynayaa 3 sano soo socota inayna khudaar iyo raashin dibadda inooga imanaya haddaan joojin weyno inay yaraan doonaan. tartankii ka dhacay halkan sidoo gudoomiyuhu inoo sheegay waxa tartan xalaala si wanaagsan baa loo tartamay, si wanaagsanna waa loo kala helay. shirkaduhuna hortiina waa arkayseeno way ka hambaliyeen. tartankan oo ay soo tartameen 3 shirkadood oo lagu magacaabo shirkadda Gacan Libaax, shirkadda Barwaaqo iyo sidoo kale shirkadda Pacific ayaa waxa ku guuleystay shirkadda Barwaaqo. labada shirkadood ee laga guuleystay waxaan hambaliye u marinaynaa inay iyaguna ay ku qancaan, annana waan ku qanacnay. anigu waxaan ka wakiilahaa shirkadda Libaax Construction, waanu ku qanacnay qandaraaska. waxaana weeye arrin cusub oo maanta u bilaabantay baan oran karaa gobolka Togdheer. Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike, Kalsan TV, Burco.